garoonka Cawaale Stadium yuu u xiran yaa is hortaagan inay dhalinyarada ku ciyaarto yaa hortaagan inay ku ciyaaraan kooxaha gobolka Mudug maxay tahay sababta xariga loogu jaray ilaa haddeertan kooxaha gobolka Mudug ugu ciyaar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة الملك استوديوك كجوكتان إذا الكيمبا كسر دواد عن فدي سبورتس هذه مالين كنت هاي مالين ونكسن هذه هاي بين كنت هاي هاي بين ونكسن عاوز سؤال يا مدحي كجو حيسو جوابتي من أدينك أيام لين كربا قصة بعض سبورتس وقبل كمدق قرون كعوال استاديوم يؤحرني يا إسهر تاجن إنه دلنا كعيارته يا هر تاجن إنه كعياران كوحة قبل كمدق محيط الصوت حرق اللغة شري إلهي هدرتن كوحي قبل مدق ugu ciyaar lay maxay tahay sababta ayadoo garoonka Cawaale la heli karo maan walba ciyaartoy gobolka mudug dhaco ma garoomo kale ayagoo xaq u leh inay ku ciyaaraan garoonka Cawaale maxay tahay sababta gudoomiyaha sports isagoo joogo gacanta loogu gelin lahaa furaha Cawaale xagee sarta ka qurusantahay xagee bay sarta ka qurusantahay su'aalahaasi waxaan jawaabtooda ka rabaa macallimiinta gobolka Mudug iyo gudoomiyaasha garoonka Cawaale Stadium xaq wuxuu u leeyahay in albaabada loo furo xaq wuxuu u leeyahay kooxaha gobolka Mudug inay ku ciyaaraan 3 sano iyo wama zaado ba garoonkaas la sugayay inay kooxaha ku ciyaaraan maalinta uu madaxweynaha xariga ka jaray ilaa haddeertaana wax ku ciyaarto waa la laayay heer waxay marayaan kooxihii iyo jirooni qabsadaan oo ay ku ciyaaraan garoomo yar yar lix ku galaan heer waxay marayaan ciyaartoydii ay ku dheelaan garoomo ka baxsan magaalada oo ciid ah qaarkood waxa la sheegayaa inay ku soo dhaacmeen garoomadaas maantadan waxa la sheegayaa ciyaartoy ka tirsan Comset shalay waxa la sheegayay ciyaartoy ka tirsan Comset inay ku soo dhaacmeen haddii Cawaale ku dheelayeen dhaawacan weyn ma soo gaareen ciyaartoydaas haddaba haddii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee garoonkaas gacanta ku hayso furihiisa waxaan ka codsanaynaa in gudoomiyaha sports gobolka Mudug lagu wareejiyo furaha si gudoomiyaha sports gobolka uu garoonka dhalinyarada ugu furo